magaalada Cadaade ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta waxaa soo gaaray ammaanduulaha ciidamada xoogga dalka General Ali Baashi Maxamed Xaaji Cumar, taliyaha guud ee ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dalka Cumar Cabdulle Cumar Dhegey iyo saraakiil kale, waxaana garoonka ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug iyo taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed. wafdigan ayaa kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Galmudug, waxayna ka wada hadleen halka ay marayaan arrimaha doorashooyinka, amniga, waxayna sidoo kaleeto kormeer ku tageen goobaha loo diyaariyay ergooyinka lagu wada inay wax doortaan. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban Cumar Cabdulle Cumar Dhegey ayaa sheegay in howl wanaagsan uu maamulka Galmudug ka qabtay arrimaha doorashooyinka, isla markaana ciidamada AMISOM looga fadhiyo inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka. doorashooyinka wadadooda aqalka kale doorashooyinka taxdiidii waa sharxinta waa la soo gudbiyey. waxaa kaloo iyana muhiim ah in kaleeto doorashadii golaha shacabka musharaxiinteedii waxaa la bilaabi doonaa 13 bisha Oktoobar. intaas haddii ay bilaabataan waxaa laga maarmaan ah in ay dhulka joogaan arrintaas amnigeeda. marka waxaan haysano waa 2 maalmood. waxaan rajeynaynaa labadaas maalmood in wax badan dowladda ku yimaadaan meesha. gaashaanle sare Maxamed Cilmi, taliyaha qaybta afraad ee ciidamada AMISOM gobolada dhexe, ayaa dhankiisa sheegay inay ka qayb qaadanayaan ammaanka, isla markaana Cadaade ay keenayaan ciidamo ka tirsan AMISOM. AMISOM haddaan nahay waxay annaga naga go'an, annaga iyo ciidamada Soomaaliya iyo biliiska oo isuwan inay doorashadaasi aan si fiican nabadgelyada u sugno, aanay doorashadaas si fiican u dhacdo haddii la hayra. horta Cadaado inta doorashooyin ka socdaan iyo hareerahayga waan xidhan doonaa si nabadgelyada aan u adkayno. waxaan doonaynaa doorashadaas inay noqoto guul u soo hoyatay dowladda Soomaaliyeed iyo dhammaan Soomaalida oo dhan. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga taageero amniga, hase yeeshee ammaanka deegaanada Galmudug uu yahay mid wanaagsan. إنه أمسك الله يعني أمني بسكول كدوشوي كذا كلام تدري ما نحكي إنه سيد المدى سجول هاي وسجول الله الله نحكي هذه أنا ما هاي هذه المثال تنحى كلام وده سجول تيجي كل هذه البناسية هذه المجالوي هذه التكميل طبعا قبل تقول حاجة هذه الولادات يا ما ربطيسها هذه أمني بسكول تقول imaatinka wafdigan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada Cadaade ay si wanaagsan uga soconayso oo diyaar garowga iyo ololaha arrimaha doorashooyinka. Maxamed Maxamuud Owaadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.